Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkani waa xusuustaye. Maanta waxaynu ka warrami doonaa taariikh nololeedkii Prof Maxamed Cumar Dalxa. Waa bare, waa heesaa, marna waa siyaasi. Prof Maxamed Cumar Dalxa oo horey u soo noqday gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya, waxa uu ku dhashay magaalada Weliweyn ee gobolka Shabeellada Hoose sanadkii 1954. magaalada Weliweyn daafeedna loo yaqaan 90 kiiloomitir xamar u jirta dhinaca galbeedkeeda. meesha ayaan dugsi waan gashan 1954. Sida uu sheegay aabihii, wuxuu ka tirsanaa xisbiga SYL. waxbarashadiisii dugsiga quraanka waxa uu dhameeyey sanadkii 1963. dugsiga hoose iyo dhexe wuxuu ku qaatay magaalada Weliweyn, wuxuuna dhameeyey sanadkii 1972. markii ugu horeysay isagoo aad u yar wuxuu shaqo ka bilaabay mashruucii lagu dhisay Beledoogle, isagoo ahaa maareeyaha maamulka iyo maaliyadda ee Damayo iyo Beledoogle. kadibna waxaa mashruucii loo wareejiyey magaalada Muqdisho. dugsiga sare wuxuu ku qaatay aqoon darsi ama waxa loo yaqaano correspondence school isagoo jooga magaalada Muqdisho, maadaama xilliga Weliweyn aysan ku oolin dugsi sare. qaarkood oo ayaga markaa xaggaana garoon kale laga dhisay. marka aniga waxaan galay bedelkii xamar raggii loo soo wareejiyey oo hoggaanka dhismaha xoogga oo markaana lagu soo biiriyey. halkaas marka aan leeyahay marka secondarygii marka waxaan dhiganayay intaan Weliweyn joogayna correspondence school. jaamacadda ummadda ayuu ka qaatay shahaadada koowaad ee jaamacadda isagoo ka qalin jebiyey kulliyadda luqadaha sanadkii 1982. wuxuu ka mid ahaa dufcadii labaad ee kulliyadda luqadaha. wuxuu noqday kaaliye jaamacadda ummadda sanadihii 1985 ilaa 1987, iyadoo 1986 ilaa 1987 uu qayb waqtigiisii ka mid ah macallin ka ahaa kulliyadda saxaafadda. Prof Dalxa waxa uu qaatay waxbarasho tacliin sare leh sanadihii 1987 ilaa 1989. macadka caalamiga ee luqadaha ee Khartoum, Suudaan ayuu ka qaatay shahaadada diblooma sare iyo Master of Arts. kadibna dalka ayuu dib ugu soo noqday, wuxuuna bare ka noqday jaamacadda ummadda iyo dhowr macdood oo lagu baranayay luqadda Carabiga. Prof Dalxa wuxuu ahaa ciyaartoy hore oo u ciyaari jiray Weliweyn, sidoo kale wuxuu u saftay kooxda dekedaha. wuxuu qayb ka ahaa kooxihii gobolada. sidoo kale Prof Dalxa wuxuu ahaa fanaan caan ah, wuxuuna qaaday dhowr heesood, waxaana ka mid ah heestii Shankaroon. markii dowladdii ay burburtay, Dalxa dalka kama uusan bixin, wuxuuna xilka iska saaray caawinta dadkiisa, isagoo noqday samafale qayb ka qaata caawinta dadka ay saamaysay colaaddii iyo gaajadii dalka ka dhacday, maadaama jabhadihii ay boobeen hantidii dadka shacabka ah ee aan hubaysnayn. Dalxa ayaa ka mid ah dadka dhibaatada weyn ka soo gaadhay colaadda, waxaana ku baxay wiil u dhalay iyo walaalkii oo dhakhtar ahaa. Prof Dalxa waxa uu xubin ka ahaa aasaasihii ururka SAMO, Somali African Mutual Organization, wuxuuna sanadkii 1994 noqday xogayaha guud ee ururka SAMO. sanadihii 2001 ilaa 2003 wuxuu ahaa xogayaha guud ee isbahaysiga. sanadkii 2004 Prof Dalxa ayaa ku guuleystay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaankii ku-meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, kadib markii uu wareegii saddexaad ee doorashada uu kaga guuleystay Maxamed Xaashi Gaani. Dalxa oo laga rabay 139 cod ayaa ku guuleystay wareegii saddexaad markii uu helay 160 cod, halka Maxamed Xaashi Gaani uu helay 96 cod, iyadoo ay codeeyeen 256 xildhibaan. Prof Dalxa ayaa ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya muddo 15 sano ah. kursiga tirsigiisu uu yahay Hoob eber 8 eber ayuu ku soo fadhiyey Prof Maxamed Cumar Dalxa. sanadkii 2022 kursiga sumadiisu tahay Hoob eber 8 eber waxaa sida ay guddiga doorashadu shaaciyeen isu diiwaangeliyey Aweys Xuseen Macalin iyo Maxamed Cusmaan Jibriil
waxaana sidaas meesha uga baxay Baroof Dalxa. Baroof Maxamed Cumar Dalxa ayaa sheegay in habraacii loo baahnaa aan loo marin tartankii kursigii isagoo hore ugu fadhiyey, wuxuuna baarlamaanka ku matalayay maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.